mucjisadan waxay ku dhacday gabar gaal ah oo ku ciyaari jirtay kitaabka islaamka balse waxaan ka codsanayaa haddii aad tahay qof islaami inaad sheer garayso sida kuwa haatan ku ciyaaraya ay ugu noqoto cibro qaadasho oo ay u daayaan. Waa mid ka mid ah qisooyinka ugu la yaabka badan caalamka, taasi oo ku dhacday gabar ku ciyaari jirtay diinta islaamka. Gabadhan ayaa isku beddeshay xayawaan isla markaana iyadoo dhanka hore ka ah gabadhii la yaqaanay, laakiin dhanka kale isaga beddeshay waa qaarka dambe xayawaan caadi oo la garanayo. Haddii aad muuqaalka daawatay isla markaana aad sheer garaysay, waan ku mahad celinaynaa. Sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad page-kan wax maqriyo TV aad follow garaysid oo aad like saartid, waadna ku mahadsan tahay. mucjisada ku dhacday gabadhan ayay sabab u ahayd kadib markii ay ku ciyaari jirtay diinteena islaamka, khaasatan kitaabka jaamaca oo ay gubi jirtay, jarjarina jirtay, ayna ku sameey jirtay wax walba oo xumaana. Sababta ay xumaantan u sameynaysay ayaa ahayd gabadhan inay ku nacaydo dadka islaamka ah. Waxaan ka codsanayaa sida ay gaalada kalena u arkaan mucjisada ku dhacday gabadhan ku ciyaari jirtay kitaabka jaamaca inaad muuqaalkan sheer garaysid oo aad gaarsiidid dhammaan dadka Soomaaliyeed. Qof walba oo gaal ah oo caadeysta inuu ku ciyaaro diinteena islaamka wuxuu la kulmi doonaa mid ay la kulantay gabadhan oo kale, taasi oo ah inuu doorsoomo ama inuu ku dhaco xanuun aan la garanayn. Waayo diinteena islaamka waa diin muqadas ah, waa diin aan wax xumaata loo quurin, waa diin sharaf badan isla markaana aan xumaata loo sameyn in lagu sameeyo. waxaa hubaal ah qof walba oo isku daya isla markaana ku soo xadgudba in uu noqon doono nooca gabadhaas.